waxaan ogaadaa mar walba stresskaaga saas kor ugu kaco uusan hoos u soo degaynin laba arin oo aad u dhib badan dhacdo kow in murqaha jirkaaga aad weyso ogow mar walba murqaha jirkaaga ay burburaan waxa imaanayso jir ahaan adiguna inaad u naafowdo li'annahu waxa da'da ka hor istaagi karo waxa caafimaadkaaga soo celin karo waxa maanta kuu fududayn kara inay xubnaha jirkaaga dhaqdhaqaaqaan waa murqahaaga mar walba marka cortisol hormoonkaaga ama stresskaaga uu high noqdo waa mar walba uu jirkaaga ama maskaxdaada ee amar ku bixiso in murqahaaga la burburiyo nasiib xumo murqi markii la burburiyo marka intuu aada waxa loo bedelaa waa qodobka labaad vascular fat waxa la dhaho fat kan ugu xun ee jirka gala kaasoo keena in kilyaha ay ku buuxsamaan in caloosha qaybta hoose ay hoos u dhacdo in jirkaaga oo dhan uu baruur meel lagu martigeliyo uu noqdo sababta vascular fat lagu bedelaa murqahaagan waxay tahay vascular fatku waa baruurta ugu fudud qofka markuu rabo inuu fat iska rido horey ka dhacda waana baruurta jirka uu ugu jecel yahay inuu energy ka dhigto adoo kilyahaagu ay waaweyn yihiin caloosha ay ku taagan tahay dhabarkii uu fat kaaga jiro boodyaha ay baruur kaaga jirto yuu jirkaaga haddana wuxuu doorbidaa in murqihii aad waqti ku bixisay protein fiican aad u cunaysay exercise fiican aad u samaynaysay inuu intuu burburiyo uu baruur degdeg ah uu isticmaali karo uu ka dhigto cyclekan marka haddii aad rabto inaad meesha ka saarto maskaxdaadana ee mar kale dareento in ay safe tahay waxaad u baahan tahay saddexdan shay inaad noloshaaga ku soo darto waa koowe waxaan ay dhahaan circadian rhythm waxaa laga yaabaa culumo badan oo yacni nervous systemka ku takhasusta inaad ka maqashay subaxii qofka marka uu soo kaco in banaanka iftiinkiisa ay indhihiisa ku dhacaan waana jaaniska inta badan dadka salaada subax masaajidada ku dukada ay haystaan